bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin. halkana waa janaalkii afqalaad aqoonta miyaa sagaalkii bishii february waxaynu kaga hadalnay qeyb yaro oo kooban oo iska dulmar ah oo ku saleysan cilmiga econometricska. waxaynu soo sheegnay in b1 hat uu qaacidada ay leedahay, beta hat zerona qaacidada leedahay. labada qaacidadood p hatkaasna waxaan ku tilmaanay inay tahay parameters, midna slope uu yahay, midna uu yahay intercept. labada qaacidood ayaynu rabnaa sidaan hore u ballan qaadnay in practically in xisaab tusaale kusoo qaadano si ay qofka ugu fududaato ujeedada laga leeyahay qaacidada, inagoo marka dambena aynu computerka zero fududoo 2 minutes ka yar 1 second ayaad kaga shaqeyn kartaa waxaasoo dhan, wax daqiiqad ka yar xisaabta qalinka iyo buugga. matalan oo kale variableka ama transactionska 5,000 oo data ayaa laga yaabaa inaad soo qaadato, ama 400 ama 1,000. marka gacan lagagama shaqeyn karo, laakiin tusaale ahaan si aad u fahantaan ayaynu soo qaadanay. marka waxaynu kasoo qaadanaynaa marka ugu horeysa waynagii soo sheegnay y iyo x ay xiriir bay leeyihiin. tan waa ti 10, marka uu laynkaas sidaa yahay xiriir 10 baa ka dhexeeya. haddii ay jiifto laynka uu hoos u jiifanaa waa xiriir 10 ka dhexeeya y iyo x. y iyo x waxaynu soo qaadanay y waxaan ka dhignay natiijada ama grade pointka ardayga imtixaankiisa natiijada. xna waxaan ka qaadanay akhriska saacadaha study time hourka. waxaan tusaale usoo qaadanay 5, 7, 8, 9, 10 shanta walax ama variable ama shay. y kastaaba edu waxay ka taagan tahay mid. x iduna waa 2, 4, 6, 7, 8. waxaan rabnaa inaan isku darno shanta shay, waxay isku noqotay wadartoodu. sumada calaamadaasina waxay loo soo gaabiyaa wadartii, waa wadar. haddaad aragto waa sumad, sidaa daraadeed baa marka halkaa summa n baa dusha laga saaraa. calaamad kastaba yani y kastaaba imika intu waxay nooga taagantay 5 xabo, 5 shay, 1, 2, 3, 4, 5. intu waa 5 hadda halkan. aydaasina waa mid kasta, aydu waxay la mid tahay 1, mid kasta la mid tahay 0 fudud. marka isku darka waa 39. marka miinkooda ama y miinka marka 5 la isku daro celceliskooda wuxuu noqonayaa 39 loo qeybiyay n. ntiina waa 5tii shay, 5 baa loo qeybinaya 7.8 bay noqotay. x tiina markii la isku daro waa 27, marka loo qeybiyo 5 waxa weeye 5.4. waxaynu u baahannahay marka xi kastaba in laga jaro miinka. marka xi miin marka laga jaro 2 laga jaray 5.4 waxaa noqonaysaa -3.4. calculatorka ayaad kaga shaqeyn doontaa idinku, haddii kale waqti badan bay naga luminaysaa. sidoo kale haddii aynu 4 ka jarno 5.4 waxay noqonaysaa -1.4. haddii 6 aynu ka jarno 5.4 waxay noqonaysaa 0.6. 7 laga jaray 5.4 waxay noqonaysaa 1.6. tan 8 marka laga jaray 2.6. waxa kaloo aad ogaan ka doontaa wax labadaas xi iyo x mean marka la kala jaro mar walba wadartoodu waa 0. taasna waa xasuus qof kastaba inuu xasuusto. xi minus x mean waa 0, yi minus y meanna waa 0 iyadana. marka yi imse ahayd 5 marka laga jaro celceliskeeda oo 7.8 waxay noqonaysaa -2.8. ka kalena wuxuu noqonayaa -0.8, 0.2, 1.2, 2.2. marka la isku daro waa 0. xi minus x mean oo inoo soo baxday -3.4 haddii aynu jibaarno
aynu jibaarno waxay inoo noqonaysaa 11.56. haddii aynu sidoo kale minus 1.4 aynu laba jibaarno waxay noqonaysaa 1.96, 0.36, 2.56, 6.76. haddii la laba jibaaro markii minus bay ahayd markii aan la laba jibaarin, laakiin haddii laba jibaaro plus bay noqotaa. waxay noqotaa isku darkoodu plus waxay noqonaysaa 23.2. waxaan doonaynaa inaan isku dhifano xi minuskii iyo yi minuskii oo ah minus 3.4 waxaa lagu dhifanayaa minus 2.8. waxay noqonaysaa markaa 9.52, 1.12, 0.12, 1.99, 1.92, 5.72. marka la isku daro 18.4. marka haddaynu soo qaadano beta null 1 waxay ahayd isku darka qeyb kasta oo ah xi minus x min lagu dhiftay yi minus y min. intaas waxay la mid tahay isku darkeedii marka la isku daro labadaas oo la isku dhiftay oo ah 18.4. waxaa loo qaybinayaa xi minus x min squared oo ah xi minus x min squared oo ah isku darkii halkaas waa 5 kana waa 5 oo loo qaybiyey 23.2 oo ah 18.4 loo qaybiyey 23.2 waxay la mid tahay 0.793.103 ayaa waxay intaasi inoo soo baxday beta hat 1. beta null hat waxay la mid tahay waxay ahayd beta hat null y min. y minki muxuu la mid yahay waa 7.8 laga jaray beta 1 kan oo ah 0.793103 lagu dhiftay x min. x minkan waa 5.4. intaa marka la isku dhifto waxay soo baxaysaa 3.517241. sidaa daraaddeed y hat waxay la mid tahay beta hat null plus beta hat 1 x xi. intaas waxay la mid tahay beta null ah 3.517 lagu daray beta 1 oo intana 0.7931 x. intaas ayay equationkii noo soo baxay. marka ku xigta waxaan isku dayi doonaa inaynu intuso sida computerka looga shaqeynayo iyo sida looga shaqeynayo computerka oo ah regression analysis aan adeegsanayno, data analysis-ka oo excelka aan ka helayno, iyo sidoo kale mar labaad aynu ka helayno excelka qeybta maxaan ku idhaahdaa insertka aan ka helayno excelka. marka insha allah intaasaynu kusoo gabagabeynayna casharkan qeybta labaad
marka dambena waynu sharaxi doonaa x kastaaba wuxuu taagan yahay iyo ujeedada ka dambeysa, iyo by haddii ay korodho, markii horeysana soo sheegnay haddii y ay korodho xna mi kordhaya, oo waxay noqonaysaa xiriir togan. unit kasta oo x ku kordha muxuu isbedel ku sameynayaa y, sidee isu saameynayna effectiveka ay isku sameynayaan labadooda muxuu noqonayaa. kabacdi marka dambena waxaynu eegi doonaa r squared oo ah correlationka ka dhexeeya r squared iyo sum of squares waxa la yidhaahdo ama least squared. marka intaasaynu kusoo gabagabeynayna. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aada baan idinka wada daaranaya sababto ah dhowr jeer baa telefoonkan ka isticmaalaya, marka telefoona igu soo dhacaa marmar, markaa way iga jarayeen, marka kheyr baad rajeynaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa inoo iyo qeybta saddexaad.